waxaan qaadanaynaa maanta sida loogu soo bandhigo website-kaaga image haddii aad rabto website-kaaga inaad image aad kusoo bandhigto. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay taggan kaasoo ah image. Ana hadda image aan iska leeyahay, halaa kale asiga ay qabanaya, waxaan qorayaa kaliya image, kadibna waxaa leeyahay enter. halaan kale waxaa ii sameynayo editorka aan isticmaalayo oo imagekan taggan listan image sourcigan altigan waxyaabahan dhan asiga ayaa ii sameynayo oo aniga intaasoo dhan waqti igama baxayo, waana sababta aan ku jeclahay kan editorkan aan soo celsho. Image waa kana. haddii aad rabto sawir inaad kusoo bandhigto waxaad isticmaalaysaa taggan, balse kan keliya hadda haddii aan save dhaho aan tagno website-keeni waa kana, kana magaca waa ka bedelayaa. sidaa ujeediin website-keeni waa kana, waa soo furay balse wax image uma jeedno ambi kale wax qoraal. wax baa noo dhiman. hadda waa kan keliya. hadda waxaan dhahnay waxaan rabnaa image, balse imagekaas haddii aad rabto inaad u sheegto imagekaas meesha uu yaalo waxaa ugu sheegaynaa source wuxuu noo qaabilsan yahay in uu macnaha noo qabto ambi kale oo u sheego website-ka imageka aan rabno meesha uu yaalo. waa sourciga, waa sawirkaas aan rabno inaan website-ka aan kusoo bandhigno meesha uu yaalo. waa kana aniga waxaan rabaa imagekan oo kan waa kana sawirkan ayaa rabaa inaan kusoo bandhigo. waa 3.jpg typekiisa waa kana. haddii aan rabno typekiisa inaan aragno intaa ka fiirinaa property-ga aan hadda banaanka u yaala waa kana. image type of filekiisa waa kana jpg waaye. marka website-keena ayaa tagaya, kadib waxaa leeyahay 3.jpg waa kaasa asiga ay soo qabtay. kadib waxaa tagaynaa website-keeni, kadib waxaa leeyahay sidaa ujeediin waa kaasa. sawirka waa kusoo bandhignay. kan qaybtan kalene qaybtan oo la dhahayo alter waxaa loo isticmaalaa haddii sawirkan lacala la waayo oo anaga sawirkan hadda waxaan rabnaa 3.jpg soo bandhigan. haddii lacala la waayo sawirkan waxaa macnaha soo muuqanaya qoraalkan. waad iska dhaafi kartaa, haddaad rabtana waa qori kartaa. marka hadda aan aragno soo bandhig sawir. hadda haddii aan sidiis ku dhaafo qoraalkan ma soo baxayo, maxaa yeelay sababtoo sawirka waa haysanaa. sida ujeediin waa kaasa. wax qoraal hadda sooma bixin, bal hadda anigoo og aan qaldo inta waxaan ku darayaa w type aanan jirin. haddii aan website-keena aan tago refresh aan dhaho, sida ujeediin maxaa soo baxay? sababtoo sawirkaas ma jiro, sawir jira ma ahan, computerka uu waayay. kadib waxaa lasoo bandhigayaa qoraalkii aan rabnay anaga oo markaas aan ugu talagalnay in lagu fahmo. hadda sidiis hore aan ku celsho. kan waxaa jira waxa la dhahayo path. qaabkan waa u isticmaali karnaa. waxaa jira qaab kale kaasoo dot forward slash. iyadana qaabkan wuu jira. qaabka hadaaya iyo qaabkan isku mid waaye. hal mar aan ku celsho si aan hal mar iskula aragno. dot qaabkan iyo qaabkan waa isku mid. hadda website-keena tagaya copy and paste leedahay dhib male. waa kana hadda maxaa ujeedaa waxaa website-kan kasoo muuqday laba sawir. inaan tusiyaa rabaa. hadda sawirkan waxaa laga wadaa sawirkan wuxuu yaalaa failkan oo html-ka iyo sawirkan waxay isla yaalaan isku meel. halaas leenoo sheego. kan calaamadaas waxay sheegaysaa current directory. failkan oo hadda aan html-ka aan ku qorino waa kana failkan desktop-ka waaye. failkan waa kan failkeeni iyo sawirkan waxay isla yaalaan isku hal meel. sidaa ujeediin waxay isla yaalaan hal meel oo hal folder iskula jiraan oo desktop-ka. hadda sawirka aan isticmaalayna waa kana 3. haddii aan sameeyo kan oo kale hadda imagekan folderkan hadda ever waaye. haddii aa folder cusub aa rabto inaad abuurato waa kana new. kadib waxaa tegaynaa folder, kadib waxaa leeyahay image to kale in tusiyaa rabay sida folder loo sameysto. haddii aad taqaanana waa kaasa alaanka gudub. kadib imagekan aan qaadaya maxaan ku ridaa intaa ku ridaa. sidaa ujeediin move muujeedo meesha ku ridooya
waa kuwii sawirka hadda inta waa ka qaadnay. hadda haddii aan website-ka aad tago bal maxaa dhacaya fiiri, sawirka ma soo muuqanayo maxaa yeelay sawirkii maba yaalo meeshii. sababtoo anaga waxaa dhahnay sawirka aad rabto sawirkan waxaa ka raadisaa keliya muhiimadu waxaa sawirka ka raadi isla folderkan aan joogno keliya 3.jpg. computerka wuxuu sameeyay wuxuu ka raadinayaa qaybtan halaan dhan oo desktopka waa intaan dhan ilaa macalin ku koro dhan khalaas. hadda calaamad asaalaas dhan laga raadinayo mana yaalo maxaa yeelay waa si aan u sheegno inuu image-ka arabno inuu ku jiro meeshaan waxaan isticmaalaynaa wax kale. okay waxaan dhahaynaa hadda maadaama ay shaxdii isbedeshay marka ugu horeyso si aad ujeedin calaamadan waxaa waaye isla folderkan desktopka ee ka raadi wax alaala iyo wixii arabno. okay folderka ka dhex bixin oo directory-gan ku jiro waaye calaamadaas. kadib waxaa leenahay sawirka waxaa sii gashaa waxaa leedahay image-ka sii gal kadib forward slash kaasoo image-ka marka aad gasho kadib waxaa kasii raadisaa image-ka gudihiisa. okay waxaa leedahay save kadibna waxaa tagaya website-kan kadibna waxaa leenahay refresh. okay waxaa ma soo muuqanayo maxaa yeelay folderkeena image folderkeena waa kana maxaan ka dhigay image 2 kana dee macnaha uu sameysnaa marka kana aniga mid cusub ahaan u sameeyay marka folderka qaladnay kaasoo image 2 kadib website-keena ayaa tagaynaa kadib waxaa la refresh. sida ujeedin maxaa soo muuqda hal sawir ayaa soo muuqday kan kalena asagana waa isla sidii oo macnaha ka bixin directory waa leedahay kan hadda calaamadan waa iska dhaafona maxaa yeelay calaamadan haddaa ka tagto iyo haddii aad ka tagin waa isku mid balse waxaa fiican inaa calaamadaas aad ku darto. by default hadda anagu uma jeedno laakiin calaamadaas aa meesha ku jirto laakiin uma jeedno. okay waxaa leedahay image kadib waxaa kaa rabaa image-ka inaa aad gasho kadibna sawirkan iga soo saarto. hadda labada sawir way soo baxayaan. okay markasta waa qaldooya maxaa yeelay folderka magaciisa qaldooya kaasoo image 2 folderka kale ku qaldooya. so labada sawir hadda waa kaasa video intaas ayuu nagu egahay. muuqaalka like saar, channelkan subscribe saar.